in qaar laga sheega mooye aan la soo koobi karin ayaa sheekooyinka hiddaha loo abuuraa. mid waa in lagu maaweelo oo qosol iyo maad loogu xisho sida cigaal shidaad. mid kale waa in murti lagula baxo sida qayb libaax iyo 3 dibi. mid kale waa in lagu muujiyo dabeecadaha dugaagga qaarkiis sida khiyaanada dawacada iyo damanaanta yaxaaska. sabab kalena waa caruuraha in lagu cabsiiyo sida dhegdheer iyo shancaloole. sheekooyinka hiddaha sheeka xariirana waa la yidhaahdaa. waxaa kaloo kolkol la isugu duwaa in lagu muujiyo garaadka heerkiisu sarreeyo ee dumarka qaarkood sida sheekada huryo ogaas iyo kabacaraf iyo midda aan barnaamijka maanta u doortay ee magaceedu yahay. waxaa la yidhi oday miyiga soomaalida ku dhaqan jiray ayaa wuxuu dhalay gabar aad u qurxoon caqlina badan. iyadoo aan weli qaangaarin ayaa garaadkeeda lala ashqaraaray. wixii la weydiiyaba waxay kaga jawaabi jirtay hadal murti leh oo haddiiba halqabsi isu roga. markaas baa magaceedu intuu dheeraaday bulshadii ku dhex faafay aadna loo sheegsheegay. dabadeed waxay guyaashu isdaba maraan oo midna soo galo mid kalena la sagootiyaba. waxay cawrali gaadhay xilligii hablaha la bilcami jiray. waxay noqotay guurgal xag walba ka bisil. kolkaas buu nin kastaaba u hanqaltaagay oo inay afadiisa noqoto laabta gashaday si ay ugu dhasho waraso sideeda oo kale u xirrib iyo garaad badan. ha yeeshee intii muddo ah ayaan taas cidina ku guulaysan. sababtuna waxay ahayd gabadha aabbaheed oo ninkii ka soo doonaba ku xili jiray xoolo yarad ah oo aad u fara badan. cid bixin karta ama quudhaana ay dagaanka ku yarayd. ragse jariska xoor lagama waayee ninbaa isa soo kilkiray. ninbay tala kaga ibabeeshay inuu isagu noqdo kii cawrala guursaday. sidaasna kaga fooray barbaartii iyo garbadowdii tirada badnayd ee u soo gogol fadhiistay asii hanan weyday. muxuu yeelay bal wax dhowr. odaygii gabadha dhalay ayuu ninkaasi u soo sadcaalay. isnabdaadin iyo iswaraysi kadibna wuxuu daboolka uga qaaday muraadkii uu ula socday. wuxuu yidhi gabadhaada cawrala inaad igula xidido ayaan kaa doonayaa. markaas buu odaygii yidhi xoola maxaad leedahay? 100 halaad iyo baarqabkooda ayaa ii foofa. markii uu sidaas lahaana wuxuu ninku filayay in qayb geelaas ka mid ah uu odagu weydiisan doono. hase ahaatee suxulkaa u mudnaaye intuu qunu fadhiistay ayuu yidhi hebelow gabadhaan warkeedu midhaa ku soo gaadhiye geelaas aad hantida dhammaantiis haddaad ka bixinayso waan ku siin. haddii kale intii aan weedhii dhammayn ayaa ninkii yidhi waan soo tashadayoo geelaasi adeer waa iga bixis. sidaas baa lagu heshiiyey. dabadeedna geelii oo aanu nidhig iyo qurbactoona ka reeban ayuu ninkii goor subaxa intuu odaygii u soo dareeriyey xerada ugu shubay. halkiibaa gabadhii loogu meheriyey. halkiibuu kala dhaqaaqay isaga oo cayb fara madow ah oo bar iyo beertoona aan lagu ogeyn. kolka wax kale uma bannaanayne ninkii gabadha guursaday wuxuu ka mid noqday dabatada ugaarku noosha ah. caanihii geela waxaa u bedelay hilibka duurjoogta. biciidka iyo cawsha, deerada iyo sagaalada ayaa xoolo u noqday oo haleeladii u bedelay. markaas buu u dhexayn jiray maalin ay dabaynada wax ugu dhacaan iyo maalin uu hungo kala soo laabto. intaas waxaa u weeliyey oo qoyskiisa nolol u ahaa midhaha xilliyada roobku da'o geedaha ka baxa sida midhacaska iyo hohobta, gumashaaga iyo latiidaha, dhafaruurta iyo mareerka iyo kuwa lamidka ah. muddo hadduu sidaas ahaa ayaa habeenkii dambe waxa u soo hoyday sadogiis. so inuu sooro ma aha. so inuu fadhiga uga kacaa dhaqanku ma ahayn. muxuuse ku sooraa? talaa ku caddaatay. gabadhii baase inta dhaqaaqday baryadoonad u kacday. waxay u tagtay qoys sida keeda oo kale dabata ah oo ay daris ahaayeen. maantaasna uu dabinkoodii sagaar ugu dhacay. dabadkii reerkaas lahaa ayay u sheegtay aabbaheed oo soo marsiiyey inuu ardaaga u jiifo, isagana ay ka doonayso sagaaradii maanta dabinka ugu dhacday in hilbaheeda uu wax ka siiyo amaba uu amaahiyo. wuxuu yidhi yeelay waase haddaad ii yeesho waxa aan kaa rabo.
haddiiba intay garatay waxa uu u jeeda ayay tidhi hawraarsan waanse degdegsanahayoo aabbahay baa nafaysane caawo goor dambe inooga dhig haddana ina kici oo iraac aada hilibka wax ka cuntide cabbaar kadib waxaa ardaagii aqalkeeda ku sheekaysanayay 3 nin waa saygeedii waa aabbaheedoo waa dabadkii ay hilbaha sagaarada ka soo amaahatay ee waxa kalena ka doonayay show hilba sagaaro hore uma bislaadaane awlala oo xeero ku sida ayaa cawaysin dambe raggii soo dul joogsatay way yara gamacsan yihiin markaas bay ku tiri 3 maalaawow hilbihii baan wadaa ee fadhiista aad cuntaane saamar qurabay 3doodii amankaag afka la kala qaadeen midba kii kale ayuu eegay wuxuu ahaa hadal ay qaadan kari waayeen iyo aflagaada culus oo in gabadhi ku tiraabto aan waayadii hore laga malaysan karin dabadeedna aabbaheed ama ninkeedii baa ku yidhi naa 3 maalaawo ee aad sheegayso yaad ku wadaa ma 3dayadan baa mase waa 3 kale oo aad meel ku ogtahay waxay tidhi waxaan ku wadaa idinkan ardaagayga fadhiye dhegaysta sababtaan idiin sheegiye horta aabbahay baa ugu horreeya oo wax alla wuxuu xoola lahaa ninkii uu yaradka uga wada qaatay ayuu caawa inta soo martiyey sooryo iyo xididin ugu fadhiyaa sow maalaawanimo ma aha marka xiga ninka iqaba isaga oo 100 halaad iyo baarqabkoodii hanta oo dadka inta ugu hodansan lagu tiriyo ayuu dhammaantood naag dhaafsaday sow taasina maalaawanimo ma aha marka saddexaad dabadka halkaan idinku weheliyaa wuxuu u fadhiyaa 100 halaad iyo baarqabkood naag yarad looga bixiyey inuu hilib sagaaro kaga muraadsado sow isaguna maalaawo ma aha